بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عشر كنا ما أنتم كسب سياي سيد اللون راديو number of hydrogen atoms iyo number of carbon atoms tirada kaarboonada iyo tirada hydrogenada ku jirta ama alkane ama alkene ama alkyne aan ku bilaawno short tricks to find number of carbon atoms and number of hydrogen atoms waa sir yar ama sir kooban khiyaano yar ama khiyaano maaragtay la soo gaabiyey adiga hab fudud oo lagu raadin karo tirada kaarboonada iyo tirada hydrogenada okay example-ka koowaad tusaale ugu horeeya how many carbon atoms imise carbon atom ayaa ku jirta lagu yiri are there ayaa ku jirta in a compound isku dhis of alkane or alkanes if hadii it is hydrogen atoms is 32 hadii tirada hydrogenada uu leeyahay ay tahay 32 ardayo markaa ka shaqeynayso waxa sameynaysa ugu horeyn maadaama waxa lagu weydiiyay ay yihiin alkane qor formulaha alkane muxuu noqonayaa formula alkane waa CN H 2N plus 2 formulaas lagu helaa formulaas muxuu noo sheegayaa tirada kaarboonada inay u taagan tahay n tirada hydrogenadana inay u taagan tahay 2N plus 2 hadda maxaa nala siiyey marka waxaa nala siiyey number of hydrogen atoms waxaa isla ekaysiinaysaa intaan u taagan tirada hydrogenada formulaha u taagan oo ah 2N plus 2 iyo tiradii lagu siiyey oo 32 ah isla ekaysii okay 2N plus 2 is equal 32 aan soo saarno value-ga n okay kan xaggu wareeji waxay noqonayaa 2N is equal 32 oo laga jaray 2 2N waxay la mid tahay 30 n waxay la mid tahay marka inta 2 u qaybi intana 2 u qaybi tirada kaarboonada ee la weydiiyey waa 15 carbon atom waa 15 carbon atoms jawaabtu waxay noo noqonaysaa sidaas hadda waxaan gelaynaa example-ka labaad
okay tusaalaha labaad example-ka labaad waxaana la siiyey ama nala weydiiyey how many carbon atoms are there imise carbon atom ayaa ku jirta in a compound of alkene haddaa alkene say ahayd hadda waa alkene waa double bond if the number of hydrogen atoms is 24 markaan waxaan joognaa alkeneska iyagana formula leeyihiin formulahoodan qoraynaa okay solution formula alkene waa CnH2n waay tirada kaarboonada waxaa u taagan n tirada hydrogenada waxaa u taagan 2n marka 2n iyo waxaa isla ekaysiinaysaa hydrogenada lagu siiyey oo ah 24 maxaan leenahay 2n is equal 24 n ta horteeda tirada taalla meel walba u qaybi inta laba u qaybi inta laba u qaybi n waxay la mid tahay 12 jawaabta marka waxay noqonaysaa 12 carbon atoms jawaabta waxay noo noqotay 24 waxaana la siiyey hydrogen waxaa ku jirta 12 carbon atom example-ka saddexaad ayaan gelaynaa okay maxaa lagu weydiiyey marka example-ka saddexaad waxaa lagu yidhi how many carbon atoms are there imise carbon ayaa ku jirta in a compound of alkyne markaan waa alkyne waa triple bond okay if the number of hydrogen atom hadday tahay 14 okay formula alkyneskaan qorno waa CnH2n minus 2 number of carbon atoms waxaa u taagan n number of hydrogen atoms waxaa u taagan 2n minus 2 annaga waxaana la siiyey tirada hydrogen 14 tiradan intaan iyo intaan isla ekaysi waxaa leedahay 2n minus 2 is equal 14 okay kan wareeji 2n is equal 14 plus 2 sababtoo ah minus ay wadataa labadan haddii la wareejiyo plus ay noqonaysaa okay 2n is equal 16 n waxa ka horeeya tirada ka horeysa waa 2 meel walba u qaybi
waxaan helaynaa 8 n is equal 8 marka tirada kaarboonada waxay noqonaysaa 8 carbon atoms sababtoo ah inta 8 ku bedel 2 ku dhufo 16 laba ka jarna waa 14 cashirkeeni maanta oo ku saabsanaa sida loo raadiyo tirada kaarboonada ee ku jirta alkanis iyo alkynis intaas ayuu ku egyahay. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.